haatan iyo qodobka ugu dambeeya han idinka hayna dhinacaasi iyo caalamka hotel ku yaala bartamaha wadanka Mali oo ay kooxo hubeysan ku qafasheen dad shisheeyaha ayaa waxa lagu dilay 12 qof falada warkaasina waxay noo eegaysaa wariyaha iyaga hodan mahad koox mintid ah oo u dhashay wadanka Mali ayaa waxa ay ku dileen 12 qof hotelka ku yaala magaalada Safari oo ku taala bartamaha wadanka Mali kooxaha hubeysan waxa ay ku qafasheen hotelka gudihiisa 24 saacadood gudahood xubno ka tirsan qaramada midoobay iyo shaqaalaha hotelka weerarkan dilka ah waxa ka badbaaday 5 xubnood oo ka tirsan qaramada midoobay wakaalada wararka ee Euronews oo ka waramaysay warkan kooxaha hubeysan weerarka ay ku qaadeen hotelka waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay ku qaadeen weerar saldhig ku yaala magaalada Safari ciidamada dawladda Mali ayaa weerar ku qaaday hotelka si ay uga fakiyaan dadkii ay hotelka ku qafasheen hotelka gudihiisa dagaalka xabadda la isku weydaarsanayay ciidamada iyo kooxaha waxa ku dhintay 5 askari iyo 4 kooxaha hubeysan ah waxaana gacanta lagu dhigay 7 qof oo kooxaha hubeysan ah magaalada Safari waxay u jirtaa xarunta wadanka Mali ee Bamako 600 oo kiiloomitir xubnaha qaramada midoobay ka socda had iyo jeer waxa ay degaan hotelka Safari qodobkaasi wadanka Mali ee inuu qaada dhigaysay wariyaha iyaga hodan mahad ayaa ugu dambeeyay daawadayaal warar wixii naga soo gaaray deegaanka dalka iyo waliba daafaca caalamka waa si toos ah uga dheehanaysan telefishinka caalamiga ah ee Ethiopian Broadcasting Corporation EBC gaar ahaan laantiisa afka Soomaaliga ee xarunta Addis Ababa daawadayaal warkan waxa si toos ah idinku soo gudbinayay waa anigu Cabdirasaaq Ibrahim Class haddaba daawadayaal warkan warka xigay inta ay dib hawada iskugu kulmi doona hadduu Allah awood la ogolaado idinku diyaar garoobaya qaybaha kale ee telefishinku idinku tala galay waxaan idinku dhaafinaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh